magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa lagu soo gabagabeeyay xafladii abaalmarinada Ballon d'Or ee sanadlaha iyadoo habeennimadii xal ahaa la bixiyay abaalmarino badan oo la guddoonsiiyay ciyaaryahano macallimiin iyo shakhsiyaad kale. qadka dhexe City iyo xulka Spain ee Rodri ayaa ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or iyadoo loo boqoray kii ugu wanaagsanaa ee sanadkii la soo dhaafay. xilli la sii ogaaday xilli hore shalay ku guuleysiga Rodri ee abaalmarinta Ballon d'Or haddana dad badan ayaa ku doodaya in looga xaq lahaa oo uu qalmay Vinicius Junior. haddaba qadka dhexe City iyo xulka Spain ee Rodri ayaa lagu boqoray dalka Faransiiska gaar ahaan xafladii Paris ka dhacday. halyeyga reer Afrika ee George Weah oo Afrikaankii ugu horeeyay ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or ayaa ku dhawaaqay hanashada Rodri ee abaalmarinta Ballon d'Or. kaalinta labaad waxaa galay Vinicius Junior, saddexaad Jude Bellingham, afraad Dani Carvajal, shanaadna Erling Haaland ayaa sidaasi ku galay. dhanka iyo ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee xagga dumarka waxaa ku guuleysatay Aitana Bonmati oo u ciyaarta kooxda Barca. Aitana Bonmati ayaa sanadkeedii labaad oo xiriir ku guuleysanaysa abaalmarinta Ballon d'Or, taasi oo ka dhigan in xagga dumarka afartii Ballon d'Or ay ugu dambeeyay aadayeen dhanka iyo kooxda Barca. waxaa ka horeysay Alexia Putellas oo laba jeer oo xiriir ku guuleysatay dhankeeda. dhanka iyo tababarihii ugu wanaagsanaa ee xagga ragga waxaa ku guuleystay tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti. Carlito seasonkii la soo dhaafay wacdaro weyn ayuu dhigay, horyaalka iyo Champions League isaga ayaa hantay. Don Carlo ayaa loo aqoonsaday kii ugu wanaagsanaa xagga tababaraha, walow gebi ahaanba uusan soo xaadirin abaalmarinta Ballon d'Or iyo xafladii xalay ka dhacday Paris. sidoo kale dhanka iyo dumarka tababarihii ugu wanaagsanayd waxaa ku guuleysatay tababaraha qaranka Mareykanka ee dumarka Emma Hayes ayaa ku guuleysatay tababarihii dumarka ugu wanaagsanaa. daayirkii ugu wanaagsanaa ee abaalmarinta waxaa ku guuleystay Lamine Yamal. xidiga daada yar ee xulka Spain iyo kooxda Barca Yamal ayaa loo aqoonsaday kii ugu wanaagsanaa daayirada daadoodu ka hooseysa 21 isagoo jira daada 17 sano. kaalinta labaad waxaa ka galay daayiradii ugu wanaagsanaa Arda Güler, kii ugu fiicnaa saddexaad Kobe Mainoo, afraad Safino, waxaana ay hayeen daayiradii loo soo xushay kuwii ugu wanaagsanaa. Lamine Yamal oo ka hadlay xafladan waxa uu yiri sharaf weyn ayay ahayd inaan helo abaalmarintan, waxaan u horay abaalmarintan hooyaday, ayeeyaday, kooxda ciyaaryahanada, tababarayaasha iyo kuwii taageeray fiska Barca ayuu ku soo gabagabeeyay daayirka reer Spain. Real Madrid waxaa loo aqoonsaday kooxdii ugu wanaagsanayd ee kubadda cagta sanadkii la soo dhaafay. kooxda cadcadka Real Madrid oo koobab badan hanatay sanadkii la soo dhaafay ayaa habeennimadii xal ahaa loo boqoray inay tahay kooxdii ugu wanaagsanayd ee kubadda cagta. sidoo kale abaalmarinada la bixiyay waxaa ka mid ah abaalmarinta Gerard Muller Trophy oo ah goolhalihii ugu fiicnaa sanadkan 2024. ciyaaryahanada kale Harry Kane iyo Kylian Mbappe ayaa ku wada guuleystay abaalmarinta Gerard Muller Trophy iyadoo goolhalihii ugu wanaagsanaa ee sanadkii la soo dhaafay ay noqdeen labada ciyaaryahan. Harry Kane iyo Kylian Mbappe ayaa ku wada guuleystay iyagoo dhaliyay min 52 gool sanadkan 2024. Kylian Mbappe ayaa gebi ahaanba ka maqnaa xafladda iyadoo la guddoonsiiyay kaliya ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane. dhanka iyo goolhayihii ugu wanaagsanaa waxaa ku guuleystay golayaha kooxda Aston Villa iyo xulka Argentina lagu magacaabay Emiliano Martinez. waxa uu ku guuleystay abaalmarinta Yashin Trophy ee loo yaqaan Best Goalkeeper 2024. sanadkiisii labaad oo xiriir ayuu qaadaya golayaha kooxda Aston Villa iyo xulka Argentina ee Emiliano Martinez. isagoo ka hadlayana waxa uu si weyn u amaanay bandhigiisii iyo saaxiibadii kula guuleystay Copa America iyo wacdarihii uu dhigay. sidoo kale Yashin Trophy final rankigiisa waxaa ka soo muuqday goolhayaal kala duwan. sidoo kale waxaa jiray abaalmarino kala duwan oo xafladii xalay ee Paris lagu bixiyay. waxaa ka mid ah Hermoso oo ku guuleystay abaalmarinta Socrates Award ama abaalmarinta bini'aadanimada ee kubadda cagta iyadoo loo aqoonsaday haweeneyda lagu magacaabay Hermoso haweeneydii ugu wanaagsanayd ama shakhsigii ugu wanaagsanaa ee xagga bini'aadanimada kubadda cagta oo si weyn abaalmarintan iyada loogu boqoray. abaalmarino kale ayaa jiray balse gebi ahaanba xafladii quruxda badnayd ee dalka Faransiiska Paris ka dhacday sidaasi ayay ku soo gabagabowday.
daawade sidee u aragtaa qaybta hoose aragtidaada nagula wadaag. Rodri ma aha xidiga u qalmay abaalmarinta Ballon d'Or.